ururada magacoodii waxaan u bixiyay anigu magac baan u bixiyeyo miyana aflagaada ahayn ila wada tayo waxa weeye ururadu waa ururo siyaasi ah iminka han doonayaan han bay leeyihiin inay dalkan hogaamiyaan bay doonayaan waxa ila jooga suldaan bulbul oo ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland si weyn ah deegaanada Soomaalida looga garanayo suldaanku maanta waxa uu wadaa war cusub oo doonayo bal inuu bulshada la wadaago soo dhawo suldaan bal marka hore ururadan cusub ee hadda doonaya inay isdiiwaan geliyaan maxaad wax ka oran lahayd bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waa dhawahay waana mahadsantihiin axmed saki maanta ilaahay baa mahadle alxamdulillahi rabbil caalamiin roobka way noo tahay horta ducadii waa laynaga aqbalay ururadan aad weydiisay horta ururada dalkuna waa u baahan yahay waana waktigii la qaban lahaana waa joogtaa marka ay waxa kale ka horeeya dhammaadaan maanta se waxaad moodaa ururadan inaanay ahayn ururadii waktigoodiina qabsan lahaa ee ay yihiin ururo uun ah igula buuq ururadaa magacoodii waxaan u bixiyey anigu magac baan u bixiyeyo waxaan u bixiyey magac la yidhaahdo igula buuqdaasina waxa weeye uun dad uun lasoo urursado layidhi dakaaleya ku buuqa dadkan iyo xisbiyadan kaaleya lagula buuqa wax dhaafsiisan intaasoo ay shaqo ay hayaano iminka oo sharciga u yaalla oo baarlamaanka u hayaan bidina ma jirto intaasun weeyaan waxay ila tahay waxay ka shaqaynayaan laakiin dalku wuu u baahan yahay ururo bedela xisbiyadii hore haddii wax bedelayaan oo bedela maxaan ku dhaha siyaasadda soo gala oo hor leh oo sidii xisbiyadii hore ay ugu soo baxeen ururada ugu soo baxa oo broseskii iyo sidii sharcigii ay mari jireen ururadu mara waa u baahan yahay dalku laakiin igula buuqdani waxaanu leenahay war igula buuqdaasi waxbay noo kordhin maysaa aayar cagaha dhiga suldaan markaad u bixinayso ururadii igula buuq miyana aflagaada ahayn ila wada tayo waxa weeye ururadu waa ururo siyaasi ah iminka han doonayaan han bay leeyihiin inay dalkan hogaamiyaan bay doonayaan ururadu sharcigoodana ha mareen waddaday doonayaan ee hankooda ay ku gaarayaan kuwa maraya maaha sharciga isdiiwaan gelinaya sidii laysu diiwaan gelinayey iyo sidii waktigoodii iyo doorashooyinka ka horreeyana tixgeliyeen doorashooyin baa ka horreeya doorashada madaxtooyaha ka horreysa waktigoodiina wuu u dambeeyaa waktigooda iyo doorashadooda ka horreysana ha tixgeliyeen iyaguna sidii la doonayay ha u soo diiwaan galeen laakiin diiwaangelinta iyo ururada kale iyo doorashooyinka kale horreyntiisa soo xukuumadda xaq uma leh taa maxaa iyaga mas-uuliyadda saaray maya dastuurka xaq u leh wixii dastuurku jideeyey baa xaq loogu leeyahay xukuumadda iyo iyagaba marka ha ixtiraamaan ha ixtiraamaan aad baad u mahadsantahay